xafladani waxaa soo qaban qaabiyay maamulka iyo howlwadeennada isbitaalka Erdogan ee Kisdifer ee magaalada Muqdisho waxaana ujeedka loo qabtay oo ahaa laba arrin oo kala ah sagootinta agaasimihii hore ee isbitaalka Mudane Xuseen Maxamed Nuur oo dhawaan loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo sidoo kale xil wareejin oo agaasimuhu xilka ku wareejinaya agaasimaha cusub. ugu horreyntii waxaa ka hadlay xafladda Dr. Naciim Koko oo ah maamulaha guud ee isbitaalka Erdogan waxaana uu aad ammaan ugu soo jeediyay agaasimihii hore ee isbitaalka oo ku amaanay waxqabadkiisa muddadii 3 sano ahayd ee uu hayay xilka agaasimaha. Hastanemizin geldiği bu noktada çok ciddi emekleri oldu. Gece gündüz çalıştı. Herkesin sevgisini ve desteğini gördü. Herkese yardımcı olmaya çalıştı. Ona teşekkür ediyoruz. maanta aniga waxay ii tahay maalin xun waa maalin murugo leh taasoo ah Mudane Xuseen Maxamed oo 2015 maalintuu furay isbitaalka Rajab Erdogan ilaa maanta dad badan caawiyay dad badan waxbaray dad badan soo saaray oo iga tagay waxaana dhanka kale ku faraxsanahay asigoo shaqo ka sii wanaagsan ka sii horumarsan u qabanay bulshada Soomaaliyeed. Xuseen Maxamed Nuur oo muddo 3 sano ah agaasime ka ahaa isbitaalka Erdogan ee Kisdifer ayaa waxa uu ka sheekeeyay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray isbitaalku iyo hawsha uu qabsoontay muddadaasi uu xilka hayay isaga iyo guud ahaan howlwadeennada isbitaalka oo hadafku ahaa in nala gaarsiiyo haddaan ahmada Soomaaliyeed level aan isbitaalkan kula wareegi karno in la soo saaro dhaqaatiir in la soo saaro nursing iyo guud ahaan shaqaalaha ka jooga isbitaalka oo skillkoodu u sareeyo waa hadafka loo dhisay isbitaalkan waa in la soo saaro dad qualified ah oo dhaqaatiir ah oo nursing leh oo maamul leh oo Soomaali ah ayaa loo dhisay isbitaalkan. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa dhankiisa waxa uu ku-xigeenkiisa ku amaanay howlkarnimadiisa isagoo oo xusay in maamul ahaan ay si dhow ula shaqayn doonaan maamulka cusub iyo howlwadeennada isbitaalka gobolka Banaadir hadda aniga Xuseen halka maamul ka joognana waxaan ballan qaadaynaa shacabka gobolka Banaadir inay abaalka Turkiga gudi doonaan aaminsan yihiin kana shaqayn doonaan maamul gobolka Banaadir ahaan waxaan idin ballan qaadaynaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka inaan si dhow idin la shaqayn doono noqon doono annagana dad walaalo ah wax halaal wixii maamulkaas gobolka uga baahataan idin saacidi doono idinku garab gali doono idin garab istaagi doono. wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fawziyo Abikar Nuur oo soo gunaanaday xafladani ayaa sheegtay in agaasimihii hore isbitaalka Erdogan uu ahaa howlkar wax badan soo qabtay muddadii uu xilka hayay. Xuseen waxa soo qabatay shaqo aad iyo aad u fiican waqti aad iyo aad u dhib badan. Çok iyi iş yaptın diyor çok zor zamanları. waa nin aad iyo aad u shaqo badan waana ku amaanay qof dhalinyaro oo shaqadiisa bir adam diyor çok genç bir adam bu kadar çalışkan bir adam. natiijada aan aragnay dawladda Turkiga kaliya ma aha Xuseen iyo shaqaalihiisa waxay ka qaateen qaybtii weyneed. ugu dambeyntii agaasimihii hore ee sagootinta loo sameeyay Xuseen Maxamed Nuur ayaa xilka ku wareejiyay agaasimaha cusub ee isbitaalka waxaana la guddoonsiiyay shahaado sharaf ay ugu tala galeen howlwadeennada uu waqtiga dheer la soo shaqaynayay. Ahmed Ali Kaahiye warbaahinta qaranka Muqdisho.